bilihii la soo dhaafay oo waxaan ka digaynay oo aan lahayn haddii la isku dayo in xukunka la isku dhajiyo haddii aan la aqbalin in dalka doorasho loo sameyn yahay ka dhacdo inay tagayso meelaan wanaagsanayn caawa waxaa muuqata in intii amniga la sugi lahaa doorashadii laga shaqayn lahaa la weeraray mas-uuliyiin ka shaqaynayay in shacab Soomaaliyeed ay dibadda u soo baxaan si ay u gutaan waajibkooda dastuuriga ah waxaan marka hore u taxsiyeynaynaa dadkii ku geeriyooday halkaas waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo eheladii ay ka geeriyoodeenna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo inta dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo weerarkii caawa ka dhacay hotelkaas waxa uu ahaa weerar qaawan oo lagu gardaraystay laguna rabay in lagu dhibaateeyo naftoodana dhibaato loogu geysto madaxda halkaas ku sugnay wax kale oo lagu macnayn karo ma jiraan waana taariikh madow oo aan caawa dhex taaganahay iyadoo muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga dalka uu dhammaaday madaxweynaha xilkiisu dhammaadana shaqadiisu keliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo ayaa caawa ummadda Soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taaganahay ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada Soomaaliyeed shaqada idin bannaan keliya waxa ay tahay inaad amniga sugtaan qof Soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan ogaada hadda waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo iyagu dalka mas'uulka ah maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa oo ugu horeyso madaxtooyadu xilkeedii uu dhamaaday sababta kaliftay caawa waxa dhacay waxay tahay in lagu baaqay in shacabka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan banaanbax nabadeed si